ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan guutooyinka Gorgor iyo 14 Oktoobar ayaa si wada jira casharo lama ilaawaan ah oo aysan ka soo waaqsan doonin u dhigay maleeshiyada Al-Shabaab kadib markii ay isku dayeen inay weeraraan fariisimo ay ciidamadu ku lahaayeen degmada Owdheegle iyo deegaanka Bariire ee gobolka Shabeellada Hoose. Cashar bixinta wadajirka ah oo ay sameeyeen guutooyinka Gorgor iyo 14 Oktoobar ma aysan ahayn mid afka ah ee waxay ahayd mid ficil ah oo gacanta loogu sharaxay kooxda falcelintii ka soo baxdayna waxay noqotay mid baal dahab ah ka gashay taariikhda bulshada Soomaaliyeedna ay aad ugu riyaaqeen. taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Sarreeye Guuto Odawa Yuusuf Raage oo gaaray degmada Owdheegle ayaa warbaahinta ciidamada qalabka sida u sheegay in cadowga la gaarsiiyey khasaare xoogan oo isugu jira dhaawac iyo dhimasho, hub iyo gaadiidna ay kala wareegeen kooxaha nabadiidka ayna gacanta ku hayaan ciidanka maxaabiis isugu jira kuwa dhaawaca iyo kuwa caafimaad qaba intaba. taliya Odawa Yuusuf Raage ayaa sidoo kale sheegay inay ciidamadu yihiin geesiyaal u taagan gudashada waajibaadkooda qaran lana gaaray waqtigii lasoo afjari lahaa kooxaha nabadiidka ah. cashar bixinta ay sameeyeen guutooyinka Gorgor iyo 14 Oktoobar waa mid tusaale fiican u ah sharwadayaasha, taasina waxay keentay in ciidanku ay soo furtaan hub fara badan iyo saanad ay kooxaha argagixisadu ku damacsanaayeen inay shacabka ku gumaadaan, wuxuuna ugu baaqay shacabka ku nool gobolka Shabeellada Hoose inay ciidamada la shaqeeyaan si amniga deegaanadooda loo sugo. casharada ay bixiyeen guutooyinka 14 Oktoobar iyo Gorgor waxaa daliil muuqata u ah muuqaaladii lagu baahiyey barta internetka oo muujinayay khasaarihii loo geystay maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab degmada Owdheegle iyo deegaanka Bariire oo ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose oo ay gacanta guutooyinka 14 Oktoobar iyo kumandosta Gorgor waxaa ku baxay horjoogayaal kooxda muhiim u ahaa. Xuseen Ganey oo ahaa horjoogihii maleeshiyada argagixisada Al-Shabaab u qaabilsan dhanka warbaahinta iyo marin habaabinta bulshada oo dhaawac xoogan ka soo gaaray dagaalkii ay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed 3 bisha Afraad 2021 khasaaraha xoogan ku gaarsiiyeen degmada Owdheegle ayaa 5 bisha Afraad 2021 ugu dhintay dabiib iyo daryeel la'aan degmada Kuntuwaarey ee gobolka Shabeellada Hoose. sidoo kale horjooge Maxamuud Raage Jiisow oo magaciisa afgarashada kooxda uu ahaa Abu Daariq una qaabilsanaa kooxda qaybta qarxida miinooyinka gobolada Banaadir iyo Shabeellada Hoose ayaa isaguna dhaawac xoogan ka soo gaaray dagaalkii ka dhacay deegaanka Bariire ee ay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed jabka xoogan ku gaarsiiyeen maleeshiyada Al-Shabaab ayaa isaguna u geeriyooday 6 bisha Afraad 2021. dhanka kale horjooge Muuse Kooble oo ahaa ku-xigeenka Abu Daariq nabadiidkana u qaabilsanaa qaybta qarxida miinooyinka ee gobolada Banaadir iyo Shabeellada Hoose iyo 6 dhagar qabe oo kale oo miinooyin ka soo qaaday deegaanka Torotoro ayaa 28 bisha Saddexaad 2021 kula qaraxday deegaanka Basro ee gobolka Shabeellada Dhexe. dhagarqabayaashan ayaa kooxaha argagixisada muhiim ugu ahaa maleegidda dhagarta shacabka maadaama ay aad ugu xeel dheeraayeen dhanka qaraxyada miinooyinka, kuwaasoo isku dayey inay awoodda saaraan sidii ay qaraxyo kala duwan uga fulin lahaayeen gobolka Banaadir. hay-adaha amniga ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa aad uga mahadceliyey geesiyaasha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee horay u helay xogta maleeshiyaadka ee ku aadan dabargoynta ummadda Soomaaliyeed sida nimada leh ay uga hortageen isku daygooda iyagoona xaqiijiyey awoodda iyo kartida ay u leeyihiin badbaadinta shacabka Soomaaliyeed. hay-adaha amniga ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sidoo kale waxay Ilaah uga baryeen inuu naxariistii janno siiyo geesiyaasha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee ku shahiiday badbaadinta shacabkooda, kuwa uu dhaawaca ka soo gaaray jihaadka ay la galeen argagixisada dhigmiiratada ah ee Al-Shabaabna inuu Ilaahay caafimaad degdeg ah uu siiyo. haddii aan dib u milicsano xusuusta diiwaanka taariikhda dalkeena Soomaaliya, degmada Owdheegle iyo deegaanka Bariire dhammaantood waxay ka tirsan yihiin gobolka Shabeellada Hoose. waa dhul beereed istiraatiiji ah oo uu wax soo saarkiisa aad u tayo sarreeyo oo uu nimco iyo barwaaqo Ilaah ku manaystay. waxaa ku nool dad beeraley ah oo nabadda jecel kuna dadaala wax soo saarka, kuwaasi oo tacbada noocyada kala duwan ee dalaga sida galleyda, sisinta, masagada, digirta iyo noocyada kala duwan ee qudaarta oo ay ka mid yihiin yaanyada, basasha, cambaha,
saytuunka, liinta, isbaandheeska, muuska, babayga iyo qudradaha kale. balse deegaanka Bariire waxaa mara wadada dheer ee isku xiriirisa Muqdisho, Afgooye, Owdheegle, Mubaarak, Janaale ilaa iyo Marko. wuxuu leeyahay buundo kala qaybisa magaalada, wuxuuna ka kooban yahay ilaa iyo 6 xaafadood oo waaweyn. degmada Afgooye wuxuu u jiraa 30 kiiloomitir, halka caasimadda Muqdishona ay u jirto ilaa iyo 60 kiiloomitir. degmada Owdheegle iyo deegaanka Bariire ayaa sameeyey horumar kala duwan oo la taaban karo tan iyo markii ay gacan ku hayntooda ay si toos ah ula wareegeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. howlgallada isdaba joogga ah ee ka socda dhammaan gobollada dalka ayaa ah mid muujinaysa sida ay ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ay awood ugu leeyihiin inay ku beegsadaan kooxaha argagixisada goob kasta oo ay kaga sugan yihiin geyiga Soomaaliya. Cumar Maxamed Kulmiye, warbaahinta ciidamada qalabka sida, Muqdisho.